xamaas oo sheegtay in meydadka ay gebi ahaanba ay raadinayso israa'iil ay ayaga ku sanduleynayso inay qaarkood ku xayiran yihiin aagga loogu yeedhay yellow zone ama aagga jaallaha ah oo ciidanka israa'iil ay ahayd inay ka baxaan aagga jaallaha ciidanka israa'iil ay ku sugan yihiin ayay ururka xamaas ay sheegeen in qaar ka mid a meydadka ay ku tuhunsan yihiin inay yaallaan israa'iil oo dhowaan ay soo gaadheen 2 meyd ayaa ku bedeshay 30 meyd oo kale sidoo kalena oo ah dadka reer falastiin ay ku laysay xabsiyada ay ku dishay israa'iil ayaa dishay boqolaal iyo boqolaal falastiiniyiina oo iyagoo nool ay qabqabatay halka ururka xamaas dadka ay ku dhintay gacmahooda ay kooban yihiin sababtoo ah inta dhimatayna ma aha kuwa iyagu ay dileen oo kuwa duqaynta israa'iil kula dhinteen ayaga iyo xubnihii ilaalinayaba laakiinse meydadka intooda kale ururka xamaas waxay ka soo qaateen goobihii ay dadka ku laayeen markii ay weerarka ku qaadeen 7 bishii Oktoobar ama October 7 haddaba waxaa wararku ay sheegayaan in dhowaan la arkay muuqaalo iyaguna muujinaya sida ay Israa'iil ay u leenaysay isla markaana ay ugu tacadinaysay dadka la yiraahdo markaasi dadka maxaabiista ah iyadoo la sheegay in gobadh korneylada oo ka tirsan ciidanka cirka ee waddanka nidaamka Israa'iil ay ogolaatay in muuqaalkaasi la sii daayo muuqaalka ayayna u ogolaatay in la sii daayo kadib markii ay ka danqatay sida Israa'iil gabi ahaanba looga qarinayo baa wax loogu yeeray arrintaasi ama loogu tilmaamay ayaa leeyahay wax loogu yeeray markaasi talaabooyinka waaweyn ee qaaday dalka Guyana ayaa isaguna waxaa la sheegay in uu soo dhaweynayo isla markaana uu sugayo hogaamiyihii mucaaradkooda oo dalka Mareykanka laga soo qabtay dalka Guyana ayaa waxay sheegeen inay degbi ahaanba ay ku faraxsan yihiin in dowladda Mareykanku ay ogolaatay in loo soo gacan geliyo hogaamiyihii mucaaradka ee wadankooda kaasoo ay dowladda Mareykanka ay ka dalbatay inay soo celiso inay soo qabato kadibna ay soo gacan geliso sida wararku ay sheegayaan hogaamiyaha mucaaradka ee markaas dalka Guyana loo yaqaan Asaruddin Mohammed sidoo kale iyo aabihii oo maalqabeena oo la yiraahdo Nassar ayaa labadaba la sheegay in lagu soo celinayo wadanka Guyana dowladda Guyana ayaa dambiye waaweyn u haysata inta badan Mareykanka ayaan wadamada kale u gudbi jirin dadka maxaabiista ah ee la qabto ama dadka ka soo carara wadamadooda ayagoo sheeganaya in la soo dhibaabeeyay laakiin arrintan ayaa hadeerta u eg mid bedeshay gebi ahaanba sidii loo arkayay dowladda Mareykanka ayaana laga baqayaa inay isku bedesho ayaa layidhi mid gacan bira ku qabata wadamada qaarkood Asaduddin in la soo qabto ayaana loo arkaa ayaa layidhi gebi ahaanba mid muujinaysa fariin kale oo hor leh oo madaxweynaha dalka Mareykanka uu go'aan ku gaarayo in uu wadamada qaarkood u gacan gelinayo xadadkaas dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in talaabo military uu ku qaadi doono iyo weerar cad oo markaasi aan geed loogu soo gaban wadanka Nigeria war murtiyeed uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka militariga iyo waaxda dagaalka ee dalka Mareykanka uu amar ku siinayo in la diyaariyo qorshe military oo lagu badbaadinayo ayuu yiri dadka Kirishtaanka ah oo uu sheegay in dadka Islaamiga ah ay leenayaan ama dadka muslimiinta ama uusan dhihin ereyga wuxuu isticmaalay xagjiriinta Islaamiga ayuu isticmaalay ereygaas oo ah erey markaasi uu la xiriirinayo xagjirnimada iyo dagaalka ayuu sheegay in ay yihiin mid diinta Islaamka ay wado ereyga marka uu madaxweyne dal uu kale uu qorayo ereyga Islaamiga iyo ereyga markaasi muslim way kala duwan yihiin muslimku waa dadka Islaam waa diinta Islaamiga hadda tirana waa arrimaha diinta la sii xiriira Islaamku uu ogol yahay Islaamiga arrin ah waa inta loo kala saara marka Islaam waa diinta magaceeda Islaamiga waa wax diiniya wax diinta ku qotoma oo diintu loo hayo yani asal diinta kule xadiis baneenayo aayad quraana asxaabtu samaysay kaasa Islaamiga la dhahaa saas uuna og yahay markuu ereyga qorayo marka sadarada waa inaad u fiirsataa marka ay madax diinta Islaamka waxa laga qorayo ereyada si loo isticmaalayo wuxuu yiri xagjiriinta Islaamiga ah ee diinta soo xiganaya macnaheedu way ayaa waxay wadaan ayuu yiri dagaal sadaraadeedna dalka Nigeria hadii dawladdu ay sida ugu dhaqsaha badan ay sii wado inay ogolaato laynta Kirishtaanka waxaan ku khasbanahay inaan talaabo military qaado sadaraadeedna waxaan rabaa in aan iraahdo annagu diyaar ayaan u nahnay in aanu arrintaasi aanu ka hortagno arrintan gunnimada ah ee socota ayuu yiri gabi ahaanba waa kuwo aanu doonayno in aanu ku joojino qori ku joojino oo haddii qori la isticmaalayo annagana maxaa noo diidi inaanu qori ku joojino ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka hadalkan ayaa ah dalqaaf aad u xoogan dowladda Nigeria ayaan ilaahay hadeerta arrintan ka soo jawaabin Trump oo qoraal dheer qoray ayaa dhinaca kale waxa uu yiri sadraadeed halkan waxaan ka siinayaa amar waaxda dagaalka dalka Mareykanka the Department of War inay u diyaar garoobaan suurtagalnimo talaabo military taasoo ah haddii
aanu weerar ku qaadno ayuu yidhi dowladda markaas Nigeria, ama haddaanu weerar qaadno wuxuu noqon doonaa ayuu yidhi mid ciyow ah oo degdeg ah, mid culus iyo sidoo kale mid macaan ayuu yidhi. sidaa daraaddeedna waxa uu yidhi waxaanu ula dagaalami doonaa sida tuugta argagixisada ah, si aanu mar kale u bambaanino ayuu yidhi walaalaheena kirishtaanka. waxa uu yidhi tani waa digniin, dowladda Nigeria haddeerta waa inaad degdeg u dhaqaaqdaan oo aad wax u qabataan ayuu yidhi. arrintan ayaana u eg mid markiiba social mediaha iyo warbaahinta isqabsatay. dadka Nigeriaanka ayaana arrintan u arkay inay tahay kicin dalkooda lagu kicinayo kala qaybsanaan aad u xoogan, ayadoo dhinaca kalena ay ku tilmaameen inay sii socoto. arrintan ayaa markii u horreysay waxaa soo kiciyey oo bilaabay nin loo yaqaano Ted Cruz. Ted Cruz ayaa toddobaadka bishii hore horaanteedii waxa uu qoray qoraallo istaba jooga, isagoo Ted Cruz berihii ugu dambeeyey oo dhan calaamad su'aal la saarayay in uu yahay nin kiristaan saxa ah. isla markaana dadka qaarkood ay yidhaahdeen ma yaqaano diinta kiristaanka, ayuu wuxuu bilaabay in dalka Nigeria uu ka qoro qoraallo istaba jooga uu yidhahdo kiristaanka ayaa lagu dhibaateeya. Ted Cruz waa ninkii isaguna mar wax ka qoray ee yidhi waa in Soomaaliya iyo Somaliland la kala gooya, waa in Somaliland laga gooyaa Soomaaliya, yani waa ninkii yidhi hadda ka hor. ninkaas ayaana arrinta bilaabay markii orisay sheekadeeda. arrintuna waxay ka dhalatay kadib markii Ted Cruz waraysi uu siiyey ninka loo yaqaana Tucker Carlson lagu burburiyey sibcadiisuna ay ku baaba'day kadib markii uu khalday aayado ku yaala kitaabka Bible-ka oo uu yidhi ilaahay ayaa yidhi Israa'iil dowladeeda hala ilaaliyo, qofkii dowladda Israa'iil ilaaliya ayaan barakeenaya. kadibna wariyaha uu wareysanayay oo aqoon u lahaa kitaabka Bible-ka uu fashiliyey oo ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi Nabi Ibraahim ayuu yidhi hala ilaaliyo, hala barakeeyo oo hala ammaano, ma uusan dhihin stateka Israa'iil, nidaamka Israa'iil ayuu yidhi cunsuriga ah, ayuu yidhi cilmaaniga ah, sidoo kalena ayuu yidhi mulxidka ah hala ilaaliyo ma uusan dhihin. halkaas ayaana fashilaadis ka bilaabatay. kadibna waxaa kaloo fashilaadis ka bilaabatay markii lagu yidhi adigu ma kiristaanka Maraykanka ah baad daacad u tahay iyo dowladda Maraykan, mise waxaad daacad u tahay Israa'iil? kadibna uu gabgableeyey uu kala sheegi kari waayey. ninka ayaa berihii ugu dambeeyey marka wuxuu bilaabay inuu wadamada muslimiinta haddaba ka qiraabto oo uu marba wadan muslima uu duufaan ku kiciyo. haddeertana Nigeria waa ninka duufaanta ku kiciyey. haddaba Trump maxaa ku kalifi kara inuu yidhahdo wadankaas ayaan gabi ahaanba weeraraya? dowladda Nigeria ayaa dhowaan afayeen u hadlay, waxa ay sheegtay in gebi ahaanba aysan arrimahaas saxayn. saacada ka hor intuu haddaba uusan hanjabaada soo dirin Mr. Trump, madaxweynaha dalka Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa war qoraal uu sii daayey. waxa uu sheegay in dowladda dalkiisa gebi ahaanba ay si dhab ah ay u eegi doonto ama ay u jirto qulqulatooyin dhinaca ammaanka oo aan diin ku salaysnayn. dowladda iyada marka Nigeria laga hadlayo waa dowlad gebi ahaanba diimaheedu ay kala duwan yihiin, waana dad gebi ahaanba ku wada nool wada jir iyo sidoo kale dulqaad ayuu yidhi, isagoo sheegay in dhammaan dadka Nigeriaanka ah oo dhan diimaha ay aaminsan yihiin ay sidooda u cibaadaystaan. Nigeria way kasoo horjeedaa gebi ahaanba arrimo diimeed mana aha mid ay weligeed iyo allaheed ay dhiirigelisay in arrin diimeed la isku weeraro. sidaa daraaddeedna arrinta waxay u eg tahay haba yaraatee mid aan ahayn sax. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta oo isaga laftiisu kristaan, afhayeenka wasaaradda warfaafinta oo isaga laftiisu kristaana ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda afhayeenkeeda aan dhaho oo la yidhaahdo Kimpembe Ebenefa ayaa sheegay in wadankiisa muwaadiniintiisa oo dhan diinta doonaba ha haysteene la badbaadiyo. tarbeelka wararka waxaa la dhinaca dulasiyada dunida oo dhan gaan ka gaar caalamka oo dhan la badbaadiyo, macnaha waxa ka wada ay badbaadsan yihiin si isku mid ah loo badbaadiyaa. macnaheedu waa saas.